asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan wadanka t v qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wargeysyada kenya oo faahfaahin ka bixiyey wadahadal ay isugu imaanayaan uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo faarax macalin oo ku baaqay in madaxweyne axmed madoobe uu raaco wadadii ay mareen shariif sakiin iyo cabdiweli gaas korneel caare oo dagaal xoogan ku qaaday somalilan madasha lagu qaban doono shirka dib u heshiisiinta galmudug oo diyaarinteeda si xoogan ay u socoto madaxweyne lafta gareen oo diyaarad qaas ah ku tagay marka siyaabo kala duwanna u indheendheeyey magaaladaasi madaxii garabka dhalinyarada ah ee xisbiga wadani oo maalintii 72aad ku xiran magaalada hargeysa soomaalida samaysanaysa suuqyada sida online-ka ah internetka looga isticmaalo oo sii badanaya rag weerar toos ah ka geystay muqdisho oo dil toogasho ah lagu fuliyey madaxweyne xaafna waxa uu ka tanaasulay in uu noqdo musharax u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug warkii oo fidsan wargeysyada kenya ayaa waxa ay ka hadleen waxa ka jiro in wadahadal toos ah ay yeelan doonaan madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta wargeyska the nation iyo east africa ee kenya ayaa sheegay in ethiopia wafdi ay u kala dirtay kenya iyo soomaaliya si xal looga gaaro muranka dhinaca badda ah ee labada dal u dhexeeya maqaalka wargeyska the nation ayaa sheegay in mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa kenya uu kasoo xigtay in Abiy Ahmed oo haatan ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD uu shir u qaban doono labada madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo aysan weli arintan xaqiijin hogaamiyaasha labada dal arintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda madaxweyne Farmaajo ay beenisay in wax isbedel ah uu ka yimid mowqifkeedii ku aadanaa dacwadda dhinaca badda oo haatan hortaala ICJ mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayuu wargeyska sheegay inuu kasoo xigtay in Dr. Abiy uu in badan isku dayay inuu xaliyo khilaafka labada dhinac haatanna waxaa kusoo biiray culeysyo arrintan la xiriira oo ka imaanaya Mareykanka iyo Britain IGAD ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in muranka badda uu curyaamiyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo kooxaha burcadbadeeda Ethiopia oo dane kale xeebaha Soomaaliya isla markaana iskaashi dhinaca ammaanka ah kula jirta qaar ka tirsan wadamada gobolka ayaa wargeysku waxa uu sheegayaa in ay ku adkeysanayso in arrintan la xaliyo wargeysyada ayaa sheegay in Nairobi aysan cadeyn karin warka sheegaya in Soomaaliya ay doonayso in dib loo dhigo kiiska badda iyadoona arrintan ay tahay mid siyaabo kala duwan loo hadalhayo hase haatee arrintan waan xaqiijinayaa ayuu yiri wargeyska The Nation qof u hadlay oo magaciisa qariyay Kenya iyo Soomaaliya waxaa labaduba culays lagu saarayaa inay wada hadal toos ah yeeshaan Dr. Abiy Ahmed haddii uu ku guuleysto dadaaladiisa waxay u badan tahay in kiiska dib loo dhigo iyadoo fursad la siinayo in labada wadan ay ka wada hadlaan xaaladda isla markaana si weyn ay u dajiyaan Kenya iyo Soomaaliya oo dana qaas ah ay ka dhaxeeyaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladooda waxay ahayd mid aan caga badan ku taagneyn iyadoona dad badan ay walaac ka muujinayeen xaaladaha adag ee soo wajahay guud ahaanba xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan dowladood u dhaxeeya siyaasiga faarax macalin waxa uu ku baaqay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu raaco wadadii horey ay u raaceen saaxiibadiisa Shariif oo ka talin jiray maamulka Koonfur Galbeed iyo Cabdiweli Gaas siyaasiga reer Kenya faarax macalin dawaara ayaa weerar culus oo afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe isagoo sheegay in wafdigii hogaamiye kooxeedyada uu dhamaaday oo ay tahay inuu dabagalo saaxiibadii Shariif Sakiin iyo Cabdiweli Gaas sida uu hadalka u dhigay faarax macalin oo si weyn u taageera madaxweyne Farmaajo ayaa fariimo soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay dadka qabiil ahaanta ku taageeraya Axmed Madoobe ay ka kooban yihiin qaar ka soo jeeda magaalada Gaarisa Ethiopia iyo qurbajoog wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashada dhawaan ka dhacaysa Jubbaland wuxuu sheegay in dadka deegaan ahaanta u leh Jubbaland uu xoog ku haysto Axmed Madoobe wuxuuna Axmed Madoobe ku tilmaamay nin aan caqli lahayn oo markasta ku celcelinaya fursadda uu helay Soomaaliya waxaa la degay muddo 40 sanadood ah hogaamiye kooxeedyo aan la aqoon oo afduubtay beelahooda waxaana uu sheegay in Axmed Madoobe ay tahay in meesha uu isaga tago isla markaana sida uu hadalka u dhigay uu dabagalo asxaabtiisii hore Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu isku diyaarinayaa in uu doorasho rasmi ah ka qayb galo iyadoona magaalada Kismaayo haatan ay ka socoto barnaamij la doonayo
in doorashooyin halkaasi ay uga dhacaan, waxaana marka ugu horeysa lasoo xuli doonaa barnaamij ku saabsan xildhibaanada cusub ee noqonaya baarlamaanka Jubbaland. Faarax Macalin ayaa si weyn u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay uu weerar ku qaadayay cid kasta oo dowladda ka ra'yi duwan. Korneyl Caare waxaa dagaal culus uu ku qaaday Somaliland, iyadoona faahfaahin dheeraad ah ay kasoo baxayso. Warar naga soo gaaraya deegaano ka tirsan Somaliland ayaa sheegaya in ciidamada jabhadda uu hogaamiyo Korneyl Caare ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ku sugnaa deegaanada Biyo-Gaduud iyo Dhoob ee bariga gobolka Sanaag. Ciidamadan ayaa ilaa haatan ku dagaalamaya deegaanadaasi oo magaalada Ceerigaabo u jira 30 kiiloomitir, waxaana lasoo sheegayaa in ilaa 3 ruux ay ku geeriyoodeen halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. Warar kale ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Ceerigaabo ay dhigayaan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka qarxay duleedka magaaladaasi. ilaa haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay xukuumadda Somaliland iyo jabhadda uu hogaamiyo Korneyl Caare oo ku aadan dagaalkan maanta halkaasi ka dhacay iyo dhibaatooyinka rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay. Waxaana idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe wixii kasoo kordha faahfaahinada wararkaasi la xiriira. Rag weerar toos ah ka geystay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu fuliyay dil toogasho ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay rag ka tirsanaa Al-Shabaab oo ka dambeeyay weerarkii 28 Oktoobar sanadkii 2017 lagu qaaday hotel Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho. Ragga la xukumay oo gaarayay ilaa 3 ayaa la sheegay inay fuliyeen weerarkaasi oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah. 3 qof ee la toogtay ayaa kala ah Farxaan Maxamed Samatar, Cabdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buule. Taariikhdu markay ahayd 22 bisha shanaad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samatar, ina Safiyo Maxamed ku dhashay Galgaduud, Cabdinaasir Dhaqane Xasan, ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo, Abshir Maxamed Xaaji Buule, ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida uu ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubeysan oo lid ku ah awoodda qaranka, qaran dumis, iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasa Hablood 2. taariikhdu markay ahayd 28 bishii 10aad 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maalba leh waxaa ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale. taariikhdu markay ahayd 30 bisha shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasa Hablood 2. taariikhdu markay ahayd 28 bishii 10aad 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bisha 7aad 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa ayaa lagu yiri war ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn looga dhursugayay in dadka ku eedeysan falalka Al-Shabaab la xiriira ay dowladda cadaaladda marsiiso. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf xoga soo baxaya waxa ay muujinayaan in uu ka tanaasulay musharaxnimadiisa maamulka Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ka tanaasulay ka qaybgalka doorashada Galmudug ee sanadkan 2019 kadib kulamo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya sida ay ogaadeen qaar ka tirsan warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya. Xaaf oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, siyahayaha taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, xildhibaan Ubax Tahliil Warsame iyo mas'uuliyiin kale ayaa la isku raacay in madaxweyne Xaaf uusan ka mid noqon tartanka madaxweynaha Galmudug ee doorashada sanadkan 2019. sida ay ila wareegyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta, Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa la sheegay inuu qaatay taladaasi isla markaana waxaan la ogeyn waxa uu ku doorsaday. sidoo kalena arrintan ayaa siyaabo kala duwan waxa uu hadalhayaa siyaasiyiinta iyo shacabka ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug. waxaa socota diyaar garow ku aadan goobta la doonayo in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka dhaweeyay go'aankiisii ahaa in shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulka Galmudug lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay sawirada halka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo dhawaan la qabanayo. shirkaasi ayaa ka dhici doona goob gaar ah oo loo diyaariyay isla markaana ay si wada jir ah uga qayb qaateen madaxda Galmudug iyo ganacsatada maamulkaasi. Wasiir Dowlaha Wasaaradda Arrimaha
gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa booqday halkaasi isaga oo ugu mahadceliyay dhinacyadii isku howlay inay goobtaasi hagaajiyaan. Waxaan kormeeray xarunta shir kale oo ah goobta loo diyaariyay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta bulshada reer Galmudug ee ka furmi doona Dhuusamareeb, waxaana ka socda diyaar garow ballaaran oo dhinacyo badan leh. Maamulka Galmudug iyo ganacsatadii diyaarisay waxaan leeyahay waajib qaran ayaad gudateen, ayuu yiri xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weheliye. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo weli odayaasha Cadaado ay ka biyo diidan yihiin inay ka qayb galaan shirkaasi dib u heshiisiinta ee loogu baaqay inay uga soo qayb galaan magaalada Dhuusamareeb. Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed diyaarad qaas ah ayuu ku tagay magaalada Marka isagoo halkaasi howlo indha-indheen ahna ka sameeyay. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa gaaray magaalo xeebeedka Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Wafdiga uu hogaaminayo Laftagareen oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ayaa kasoo ambabaxay degmada Xudur oo ay kasoo qaaday dayuurad uu leeyahay. Wafdiga uu hogaaminayo Laftagareen oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ayaa kasoo ambabaxay degmada Xudur oo ay kasoo qaaday dayuurad ay leedahay qaramada Midoobay. Madaxweyne Laftagareen iyo xubnaha la socday waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kan degmada Marka iyo qaybaha bulshada. Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana si wadajir ah u sugayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Waxaana la filayaa in madaxweynaha uu la qaato kulamo kala duwan waxgaradka deegaanka iyadoona la filayo in uu dhageysto baahiyaha kala duwan ee quseeya arrimaha la xiriira maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. Gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani maalintii 72 ayuu ku xiran yahay xabsi ku yaala Hargeysa iyadoona xaaladiisa warar kala duwan ay ka soo baxayaan. Xukuumadda Somaliland ayaa xabsiga ka sii deysay gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani oo 71 maalmood ku xirnaa xabsi ku yaala Hargeysa. Xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Biixi ayaa xabsiga ka sii deysay gudoomiyaha dhalinyarada ee xisbiga wadani Maxamed Sadiq Dhame kadib muddo 71 maalmood ah oo uu ku xirnaa jeel weyn oo ku yaala Hargeysa. Gudoomiye Dhame ayay ciidamada booliiska Somaliland ka soo qabteen gurigiisa magaalada Hargeysa ku yaala waqti duhurnimo ah kadib markii uu bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu ku sheegay inuu kaga soo horjeedo xaaladii degdega ahayd ee madaxweyne Biixi uu ku soo rogay 3 degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag. Gudoomiyaha oo sii diintiisa kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in si sharciga aan waafaqsaneyn loo soo xiray isla markaana ay booliiska kula kaceen wax aan u wanaagsaneyn sumcadda iyo sharafta Somaliland. Dhame waxa uu uga mahadceliyay dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntiisa isagoona ka dhawaajiyay in sii deyntiisa ay daba socotay dadaalo badan oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta xisbiga uu ka tirsan yahay ee wadani. Maxamed Sadiq Dhame ayaa sidoo kale xusay in xukuumadda ay dulqaad u yeelato dadweynaha dhaliilaha u soo jeedinaya oo aysan u adeegsan awood dowladeed taasi oo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin. Soomaalida waxaa lagu ammaanaa inay yihiin dad ganacsiga ku horumaray iyadoona had iyo jeerba la arkayo iyagoo sameynaya horumaro kala duwan oo dhinaca ganacsiga ah. Waxaa soo badanaya suuqyada dhanka internetka laga furayo ee ay Soomaalida leeyihiin kuwa oo aad ka heli karto adeegyo kala duwan oo muhiim ah. Waxaa si rasmi ah u shaqo bilaabay suuqa Salama Market oo ah meel aad si nabad ah wax uga iibsan karto adigana aad u dhigan karto iyadoona tani ay tahay mid ka mid ah dadaalada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed. Salama Market waa suuq ganacsi oo kuu fududeynaya wax kasta oo aad u baahan tahay iyadoona adeegan uu yahay mid aad kuugu fududeynaya adigoo gurigaaga jooga inaad hesho. Suuqan ayaa waxa uu ku fududeynayaa inaad wax aad doonayso iibsato ama wax aad iska iibiso iyadoona dhalinyarada Soomaaliyeed kadib markii ay shaqo la'aan ka cabanayeen intooda badan haatan ay la yimaadeen fikrado kala duwan oo ku taxalluqa sidii shaqooyin gaar ah ay u abuuran lahaayeen iyadoona bulshada Soomaaliyeed adeegyadan loogu baaqay inay si weyn uga faa'iideystaan. Akhyaartana daawanaysa intaasna waxaa inooga idil baahinteena warka caalamka oo aad kala socoteen Wadanka TV. Tani inteenu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo.